صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي لبي طبناد يدروستين حجك هدبا عمردي مركات سدا أقودتو أود حلالودو أود بركاغي إسكا قادتو أو وحولي بحلال كون نقضو أود مالما إسكا جوكتو إسكا نسطو يا مركي سيديدات كلان تمطو عيبان شيغين حجك قاب كاد اللو حجيو مركي سيديدات مالنتا سيديدات لقارو أيا ديار قروبيسا mar labaad baad haddana xajkii xilligaa xiranaysaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala adigoo meesha aad degan tahay hoteelka aad degan tahay ayaad haddana ka xidhanaysaa waad qabaysanaysaa hadday kuu saalanaato dharkaagiiba oo kuu diyaarsan ayaad xidhanaysaa mar labaad kadibna waxaad ku dhawaaqi labayka xaja allaahuma labayka xajan allaahuma labayka xajan labayk allaahuma labayk لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ذكر قاسا الأقرنا يا مركاد انتاس أقردو ومالنتي سغالات لجار الصبحي أيا وحالو بحيا من أيا الآذية من مركلة تغتين ينكي لغور لسيبا تغيسا ظهر كإيا عصر كإيا مغرب كإيا عشاء كإيا صبحة أيا لغوتك صبح هو كدنبوي أو سغالات كأ subaxii hore waxaad ku soo tukatay magaaladaadii maka ayaad ka soo baxday laakiin duhurkiibaad halkaa kala bilaabanaysaa mina marka la tago teendhooyinka duhurkiibaa tukan casarkana waa tukan maqribka waa la tukan cishaa'igana waa la tukan subaxana waa lagu tukan la jamcin maayo oo waxaa weeyaan salaad walba xilligeeda ayaa la tukanayaa ayib qoraxdu markay soo baxdo waa maalinta sagaalaadka ah ayaa la dhaqaajinayaa carafo la aadayaa carafo marka la tagana duhurkaa lagu tukanayaa iyo casarka adigoo labadooda hal mar jamcu taqdiim baa la samaynayaa duhurka xilligeedii baa waxaa la israacin duhurkii oo 2 ragcadooda iyo casarkii oo 2 ragcadooda ayaa la tukanayaa halkaasaad sii joogaysaa haddana ilaa gabalku uu kuu dhaco gabalku markuu dhaco oo inta maalinta dhan sagaalaadka ee duca ku jirtay ayaa la soo baxayaa oo waxaa la aadaya adigoo ducaysanayo qiblada waliba u sii jeeda qoraxdu markay dhacdo ayaa musdalifa carafo laga soo tagayaa musdalifa habeenkaa loo soo guuraynayaa musdalifa markaad soo gaadho maqribka iyo cishaha ayaad ku tukan iyo fajarka salaada subax saddexdaana halkaa banaanka weyn baa habeenkaa lagu tukadaa kadib waagu markuu bariyo waad sii joogaysaa inta waad ducaysanaysaa qoraxdu ilaa ay ka soo baxayso xilliga ay ka soo bixi soo dhawaato ayaad joogaysaa haddii qofku qof iska daciifa yahay qofkii dadkii da'da ahaa dadkii iska xanuunsanaa dadkii tabarta daraa dumarka oo dhan oo iyaga la siiyey ogolaansho iyo ruqso loo siiyey habeenkaas iska guuri karaan oo waxba subaxiina meesha ku sugaan muhiim ma aha marka si ay u sii gantaan buurtii jamratul caqaba xilli hore oo dadku ayna imaanin si u sii tuurtaanba iyagu iska sii bixi karaan laakiin dadkii caadiga ahaa siday u ducaysaan markii qoraxdu intayna weli soo bixin ayay iyagu ka soo dhaqaaqayaan mina ayay soo aadayaan mina markay soo gaadhaan waxay tuuranayaan jamratul caqaba jamradii buurtii ayaa lasoo gamanayaa oo marka waa aqrabul jamaraat saddexda buurood midda xagga maka ugu xigta ayaa 7 jeer ayaa 7 dhagax lagu soo tuuranayaa oo mar walba isdaba joog ah oo mid walba Allahu akbar la leeyahay markii dhagax walba la tuurayo kadibna markii buurta la ganto ayaa la gowracayaa dabxi baa la samaynayaa xoolihii aad waday ayaa la qalayaa oo markaas dad baa wado oo waxaan hadda ku shaqalo oo xoolahaas loo dhiibo iyagaa qalay xilligaas ay gowracayaan oo la rabaa in fuqarada iyo masaakiinta iyo loo qaybiyo kadib baa waxaad samaynaysaa haddana madaxaagii burragii ama xiiranaya ood kulli iska xiiri ama waad gaabinaysaa laakiin dumarku iyagu wax yar unbay timahooda ka jarayaan intaa markaad samayso saddexdaa shay oo ah inaad buurtii gamatay oo ah inaad timahaagii wax ka goysay oo in xoolihii lagaa qalay ah ayaa waxaad noqonaysaa qofkaas isaga ah isagana wuxuu noqonayaa haadii 3 kaad rabtaad ku bilaabaysaa waxba sharti ma sida ugu fiican waa inaa buurta la ganto haddana wax la gowraco haddana timaha la xiirto
waa hadday kuu sahlanaato. laakiin haddaad midka kale ka hormariso falaa xaraj, wax dhibaata ah ma laha. intaa markaad samayso qofku waxa la yidhaha ataxallul alawal wuu xalaaloobayaa. marka maxaa xalaal kuu noqon? wax alla wixii xaaraan ka ahaa markii laga reebo reerkaagii iyo xaaskaagii, yacni dharkaagii baad xidhanaysaa, umuurtaadii oo dhan baa kuu banaananaysaa. maka ayaa markaa loo degayaa. dawaafkii la odhan jira dawaaful ifaada ee weynaa oo maalinta 10aad ayaa la samaynayaa. bayna safa walmarwa ayaa sacyigii xajka isagana lala imaanayaa. sidaasaa waxaad kaga xalaaloobaysaa taxallulkii labaad ee weynaabaa kuu dhici. dhammaan wixii xaaraan kaa ahaa xalaal buu isla galabtaaba oo kuu noqonayo maca reerkaagii uu ku jiro. marka qofku dawaafka iyo sacyiga markii uu soo dhammaysto wuxuu usoo noqonayaa mina ayuu usoo laabanayaa. marka waa maalintii ogow, habeenkaas waa habeenkii 11aad ayaad gelaysaa insha allahu tacaala. marka intaasuu xajkiina qaybtiisa isaguna ku dhammaanayaa. wabilaahi tawfiiq.